waxa habeenkaas iga hadalsiiyay wuxuu ahaa gabadhi ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabtay derbigii dadka ka dambeeyay waa u dhawaaday inaan soo taabto dadka ka dambeeyay way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo imagine gabadhii u oleynaysa oo beledweyne lagu dilay xildhibaanad aamina wax yar haddaan kuu sheego aamina dadka dilay waxaa la dhahaa gobollo kalaa laga keenay beledweynea la keenay beledweyne meelaha intii la keenaa qayb ka mid ah ayaa laga soo qaaday ninkaas aamina dilaya habeenkaas saacadda cishaha camal ay ahaydaan qiyaasayaa ma rumaysanaysaa 3 xildhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo aamina ka dambiye badan markii dhinaca shabaabka loo fiiriyo ya oo ay ka mid yihiin gabdho ay ka mid yihiin rag wasiire ka ahaa dowladda oo xildhibaannimada ah ninkii waxaa la ii sheegay markasta inuu soo istaagayay qofka soo maray aamina miyaa inuu dhahayay marka imagine aamino intaan taariikhdeeda ka hayno mar ay kooxahaas oo maxaa la yidhaha argagixisada ama al-shabaab ay wax ka sheegtay meel lagu mahayo waa yaa waa cid marka taarget garaysanaysa adaan ku weydiiya dadkii oo shabaabka ama argagixisada baabi'inayo la dagaalamayo kuwa meesha soo maray waayo oo xildhibaannimada raadinayo oo isla dariiqaas soo maray oo luku soo maray muu istaagin ninkii taarget umuusan ahayn laakiin gabadhan taarget ay u ahayd marka waa garan kartaa iyo gabadhan waxay u soo taagneed kollaytaba waxaa aaminsan tahay inaanay shabaab dilin oo dadka ka dambeeyay gabadhan kuwii ikraan dilay ka dambeeyay maalina ilaahay uu ka soo saaraya subxaana watacaala haddii dowladdan tahay iyo haddii dowladda ku xigta tahayba maalin way ka soo baxaysaa waa kaas taasaan aaminsanahay